kiis ka dhacay dalka Sweden wuxuu ka mid yahay kiisas dambiyeedka ugu adag ee wajaheen hay'adaha ammaanka Yurub qarnigan. Dhacdadan ka dhacday subax ka mid ah sanadkii 2004 ayaa horseeday baaritaan weyn oo socday muddo dheer, taasoo si qoto dheer u saameysay nidaamka cadaaladda iyo kalsoonidii bulshada. Inkastoo dadaal adag la sameeyay, haddana kiisku wuxuu noqday mid aan si fudud loo xallin karin. Booliiska Sweden waxay isla markiiba bilaabeen howlgallo rasmi ah oo ay ku jireen ururinta cadeymo, wareysiyada dadweynaha iyo adeegsiga farsamooyin casri ah. Inkastoo cadeymo muhiim ah la helay, haddana xogtaasi ma aysan keenin aqoonsi degdeg ah oo dambiilaha ah, taas oo sababtay in baaritaanku galo marxalad dheer oo hakad ah. Muddo 16 sano ah kadib, horumarka sayniska DNA iyo isbedel sharciyeedka ah ayaana suurtagelisay in kiiska dib loo furo. Isticmaalka farsamo casri ah oo hore aan loo adeegsan Yurub ayaana ugu dambeyn horseeday in la aqoonsado qofka falka geystay, taasoo kiiskani ka dhigtay mid taariikhi ah oo bedelay habka loo wajaho baaritaanka dambiyada culus. Waa idin salaamay daawadayaal, magacaygu waa Xaliimo Daawud. Inta gudaha u galin warbixinteeni maanta waxaan ka codsanayaa inaad subscribe iyo dhahdo channelka laagtana ii saarto. Channelkan waxaad ka helaysaa xogaha sirdoon, dambiyada qarsoon iyo xogaha caalamka inoo bilaabo markaan sheekadeeni maanta. Subax ka mid ah subaxyada caadiga ah, magaalo ka mid ah dalka Sweden waxay ahayd magaalo degan oo dadku is yaqaanaan. Subaxyadu u bilaabmeen si caadi ah, carruurtana iskuulka u socdaan, dadka waaweynkana u baxayaan shaqooyinkooda maalinlaha ayagoo aan walwal qabin. Subax hore Oktoobar 2004, hawaduna ay qabowdahay, caleemaha deertuna waxa ay ka buuxeen wadooyinka, wax walba u ekaayeen jawi degan oo dhibaato jirin. Maxamed, wiil yar oo 8 jir ah, wuxuu xirnaa jaakad yar, boorsadiisna dhabarka ayuu ku watay, asagoona kaligiis u socday iskuulka, wadooyinka ku sii ciyaaraya cabsi la'aan. Asagoo maraya wado u dhow iskuulka oo maalin walba mari jiray, ayuu si lama filaan ah ula kulmay nin aan hore u aqoon, uusan garanaynin. Ma jirin hadal dheer oo dhex maray, balse xaaladda si degdeg ah ayay isku beddeshay iyadoo ninkaasi oo si lama filaan ah u weeraray wiilkii yaraa oo iskuulka u socday. Dhacdadu waxay dhacday waqti aad u kooban, iyadoona wiilkii yaraa uusan haysan fursad uu ugu cararo ama gargaar u helo. Dhowr ilbiriqsi kadib, Anna oo ahayd 56 jir ayaa gurigeedii ka soo baxday, iyadoona u socota hawl maalmeedkeeda, ayaa ka war heshay waxa meesha ka dhacaya. Ninkan wiilka yar iskuulka u socda dilayo. Aad ayay u qeylisay, iyadoona isku dayaysa in wiilka ka celiso. Sidoo kale waxay isku dayaysay inay hareeraheeda wadada ee dadka raadiso. Markii ay isku dayday inay soo dhex gasho oo ay ka celiso, ayuu weeraray, taasoo ka dhigan in iyadoo iska reebaya si goobta ugu baxsado. Kadib dhacdada meesha ka dhacday, ninkii falka geystay si dhaqsi leh ayuu uga baxsaday. Dadkii goobta ka ag dhawaa ayaa soo buux dhaafiyay, iyagoona la yaaban waxa meesha ka dhacay. Kadib booliiska ayaa la wacay. Markii booliiska yimid, sawir argagax leh ayaa hortooda yaalay. Wiil yar oo iskuul u socday iyo haweeney 56 jir ah ayaa goobta yaala. Daqiiqad yar gudahood wax walba way isbedeleen. Codad qalqal geliyay xasiloonidii xaafadda ayaana hawada galay. Sidaas ayay dhacdadu ku noqotay mid murugo leh oo magaalada dhan gilgishay, isla markaana bilowday baaritaan socday sanado badan. Markii kiisku dhacay 2004, koox dambi baarayaal ah ayaana isla markiiba loo diray goobta, waxaana hogaaminayay saraakiil sare oo ka tirsan waaxda dambiyada culus. Magacyada shakhsiyaadkaasi waqtigaasi si faahfaahsan looma shaacin, balse baaristu waxay ahayd mid heer qaran ah, iyadoo ay ku lug lahaayeen waaxda ka shaqeysay DNA-ga si DNA loo helo. Dambi baarayaashu waxay wareysteen kumanaan qof, dadka deegaanka xaafadda uu falku ka dhacay, waalidiinta carruurta iskuulka aada, dadka ka shaqeeya goobaha ganacsiga u dhow, iyo qof kasta oo la rumaysan yahay inuu subaxdaasi goobta ka dhawaa, iyo cid walba oo laga shakin karo. Wareysiyada badankood waxay ahaayeen kuwo weyn oo faahfaahsan, balse magacyada dadkaasi lama shaacin si loo ilaaliyo amniga iyo noloshooda gaarka ah. Baarayaashu waxay ururiyeen cadeymo badan, inkastoo intoodii badan ay u muuqdeen wax yar oo aan waxba ka taraynin, haddana hal shay ayaa ka dhex iftiimay: DNA aan la aqoonsan qofka uu yahay. DNA-gaasi wuxuu noqday rajada kaliya ee kiiskan, balse waqtigaasi ma jirin xog lagu barbardhigi karo, keedadkuna ma aysan siin wax jawaab ah.
maalmuhu waxay isku bedeleen toddobaadyaduna sanado iyagoona baaritaanka socdo. Dad badan ayaa la wareystay, magacyo badan laga shakisan yahay ayaana jiray, kumanaan qof ayaa la baaray, boqolaal DNA ayaana la qaaday, balse dhammaan raadadkii waxa ay ku dhammaadeen meel cidlo ah. Qoyska dhibanayaashu waxay ku noolaayeen murugo joogto ah, su'aalo aan marnaba laga jawaabin, ayagoona sugaya cadaalad aan imaaneyn. Sanadkii labaad kiisku weli wuu furnaa, balse warbaahinta xiisihii way ka yaraatay, dadkuna si tartiib ayay u bilaabeen inay aaminaan in runta la waayay. Boolis badan oo ku lug lahaa baaritaanka ayaana ku adkaystay inaysan quusan, balse waqtigu uu ku adkaaday. Kiisku wuxuu si rasmi ah u noqday galfeelal duug ah lagu keediyo, balse weli culays ku ah maskaxda baarayaasha. Sanado badan ayaana dhaaftay, tiknoolajiyadu way horumartay, dadkuna way isbedeleen, halka kiiskani uu weli ku jiro mugdi. Markii la soo gaaray 2010, sayniska DNA-ga wuxuu gaaray heer cusub. Wadamo badan ayaana bilaabay inay adeegsadaan habab cusub. Sweden muddo dheer waxa ay ka labalabeynaysay isticmaalka habka cilmiyeed casri ah oo isku dara DNA-ga iyo cilmi baarista qoysaska si loo aqoonsado qof ama loo raadiyo xidid qabiil, gaar ahaan marka magac ama aqoonsi toos ah loo waayo. Habkan DNA-ga laga helo goob dambi ama shay gaar ah ayaa lagu barbardhigaa keedka DNA-ga dadweynaha, kuwa ay dadka si ikhtiyaari ah ugu diiwaangeliyaan si ay u ogaadaan asal ahaan qoyskooda, halkii si toos ah qof loo raadin lahaa. Wuxuu raadinayaa qaraabo fog sida adeer, in adeer ama awoowe. Kadibna cilmi baarayaashu waxay dhisaan geed qoys oo tartiib tartiib u yareynaya dadka suurtagalka ah ilaa laga gaaro qofka saxda ah oo la raadinayo. Dhinaca dambi baarista wuxuu noqday qalab aad u muhiim ah marka farsamooyinka caadiga ah ee DNA-ga sida keedka booliska aysan wax natiijo keenin. Waxaa si gaar ah loogu adkaystay kiisas hore, iyadoona si adag loo raaco sharciyo iyo xeerar ilaalinaya xuquuqda dadka, isla markaana kormeer dowladeed lagu sameynayo isticmaalka xogtaasi. Balse ugu dambeyn sharci ayaa la ansixiyay 2019. Feelkii duuga ahaa ee kiiska mar kale ayaa la furay. Boolisku waxay la xiriireen Peter, nin ku xeel dheer raad raaca qabiilka DNA-ga, balse aan ka tirsaneyn booliska. Peter wuxuu helay DNA-gii la keediyay, tallaabo ayuuna u dhisay jaantus qoys ama khariirad qaraabo. Waa hab lagu muujinayo sida dadka qoys ahaan iskugu xiran yihiin, laga bilaabo awoowayaal hore ilaa carruurta maanta nool. Magacyo hore. Bilaha shaqadu way dheeraayeen, mararka qaar rajo la'aan ayaa timid, balse shaqadu ma istaagin. Ugu dambeyn waxaa hoos u yaraaday tiradii dadkii ilaa dhowr qof oo kaliya. Hal magac ayaana si tartiib ah ugu dhex muuqday xogta. Magacaasi wuxuu ahaa Daniel. Booliska si qarsoodi ah ayayna ula socdeen noloshiisa, dhaqdhaqaaqiisa iyo taariikhdiisa. DNA-gii la helay si sharci ah ayaa lagu barbardhigay kii goobta. 16 sano kadib, dambiilihii ayaa la helay. Markii la qabtay, Daniel ma uusan muujin iska caabin, wuxuuna u muuqday nin aqbalay inuu waqtigu ka adkaaday. Qorshihiisuna waxay ahayd mid degdeg ah. Maxkamaddu waxay dhageysatay sheekada oo dhan, cadeymaha, sanadihii lumay iyo xanuunka qoyska. Go'aanka kama dambayska wuxuu noqday in Daniel lagu xukumo daryeel maskaxeed. DNA-gii la helay 2004 ayaana noqday furaha 2020. Waqtigu wuu dheeraa, balse raadku ma baabi'in. Boolisku waxay sidoo kale qaadeen in ka badan 6,000 oo tijaabo DNA ah. Daniel magaciisa rasmi ah ayaa loo shaaciyay kadib go'aankii maxkamadda. Haddii intaana la soo gaartay daawadayaal, aad ayaa u mahadsantahay. Like muuqaalka, share dheh si saaxiibo badan u gaarno. Qaybta hoose faalada fikirkaaga nagula wadaag. Saaxiibada cusubna soo dhawaada ayaa idin leeyahay. Mar kale mininkiina la weeyo soo dhawaada.